شكرا دكتور عمر عبد القادر احمد فقي وينك السعودي ان مشرحين تقريبا كامل وشرحا كرسي مدحوينه اي كتب تمانين سوس على شو حلبان انا wax xildhibaanaa oo aad soo saaratay oo aad ku talagelisay ma jirtaa oo aad qaad lacag siisay ama si kale aad u doortay arrintaas ma jirta arrintaasha su-aal aad u fiican waaye aad baan kaaga mahad celinaya run ahaantii aniga hadda hal qof oo aan lacag siiyey oo aan idhi kursiga soo qaado ma jiro hal maamul goboleed oo aan inta taleefon u diray ama aan la hadlay oo aan idhi waxaan rabaa ninkaasaan wataa ii soo saarna ma jiro sababtoo ah waxaan ku kalsoonahay xildhibaan kasta ee soo baxa suu doona ha ku soo baxo suu doona ha ka yimaado inaan la kala lahayn inuu yahay mas-uul qaran inuu waddankan aayihiisa iyo mustaqbalkiisa go-aankeeda wax ku leeyahay uuna u codayn doono musharaxa ugu aragtida wanaagsan ugu fikirka wanaagsan ugu habboon inay xulan doonaan marka sababaan hadda kharash ugu bixiyo hebel ha la ii soo saaro inay sax tahay fikriyanna ma qaba inay sax tahay oo waayo corruptionkii iyo laaluushkii baad qayb ka noqonaysaa waa jiraan xildhibaano dad raadinayo ii yimid oo ishaxaaday oo aan wax yar u dhiibi laakiin 2,000 iyo 3,000 iyo wax la mid ah laakiin qof aan idhi 100,000 kun oo isku soo saar ama 50,000 kun oo saar maya mana ogolayn baxta oo run ahaantii mabdi'iyan baan u diidanaa qof ahaan baan u diidaa damiir ahaan baan u diidanaa marka waxaan leenahay dadkii soo baxay ciidana male lama kala xigo waxaan ku kalsoonahay 100% inay musharaxiinta qiimayn doonaan qofka ugu habboon oo dalkan maanta samata bixin doonana ay codkooda siin doonaan su-aasha kale dr